madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta digreeta madaxweyne ku magacaabay 9 mas'uul oo ka mid noqon doona xukuumaddiisa kuwaas oo xilal kala duwan u magacaabay madaxweynuhu isagoo cuskanaya qodobada 9aad farqadiisa 3aad ee dastuurka mas'uuliyiinta uu ku magacaabay digreetadiisana waxa ka mid ah Cismaan Sheekh Cabdi Sheekh Maxamed Kaahin maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mustafa Faarax Ali Aadan maareeye ku xigeenka hay'adda wadooyinka Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhawrista tayada Xaaji Geed gudoomiye ku xigeenka hay'adda dhawrista tayada Maxamed Cali Bila Guuleed agaasimaha guud ee madaxtooyada Axmed Xasan Cigaal Sahal safiirka Soomaaliland u fadhiyi doona Itoobiya Maxamed Warsame Ducaale ergeyga gaarka ee Soomaaliland u qaabilsanaan doona qaramada midoobay Maxamed Cabdikariin Cumar Ismaaciil Marshal safiir ku xigeenka Soomaaliland ee Itoobiya ayaan la salaad diiriye safiir ku xigeenka Soomaaliland u fadhiyi doona dalka Kenya mas'uuliyiinta xilka wareejinaya waxa uu madaxweynuhu uga mahad celiyay sidii xilkasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkoodii qaran muddada ay xilkaasi hayeen madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku saxan digreetadaasi Muuse Biixi Cabdi dhinaca kalena madaxweynuhu waxa uu isla maanta magacaabay isagoo soo saaray digreeto kale oo madaxweyne maxkamadaha ciidamada qaranka gaashaanla sare Salabaan Muuse Xasan gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Siciid Xasan Maxamed garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliland gaashaanla dhexe Ibraahim Maxamuud Guuleed gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee aaga bari gaashaanle Abdilaahi Xasan Caraale garsoole ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle Yaasiin Xaaji Cali Maxamuud garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanle dhexe Faad Raage Maxamed Xirsi xirilaaliyaha guud ee ciidamada qaranka gaashaanle Khadar Cali Maxamuud xirilaaliye ku xigeenka koobaad ee ciidamada qaranka mas'uuliyiinta xilka wareejinaya waxa uu madaxweynuhu uga mahadnaqay sidii xilkasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkooda qaran muddadii ay xilkaasi hayeen isla markaana waxa uu faray in ay ku noqdaan talisyadii ciidan ee ay ka tirsanaayeen Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Hargeysa